waxaan rabaa inaan tilmaamno cayda nebi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig kuwii wax ka sheegayna waa la xidha maalan qaar taariikhda qore qaar ka mida waxay yidhaahdeen 60 milyan may gaadhaynin dadkii yuhuudda meesha lagu dilay cilladu waa maxay daliilkiinnu waxay yidhaahdeen yuhuuddii jarmalka iyo intan degganaydba 6 milyan ma gaadhaynin taariikh ahaan markaannu xisaabinno saa daraaddeed 6 milyan hadda may odhannin lama gubin waxay leeyihin tiradaa inta ka yar ka muslim ahaan aniga hadduu ninkii gubay qiranayo uu leeyahay 6 milyan baan gubay iqraarku dee waa markhaati madoon waa gubteen baynu leenahay dan kama lihin inaan idhaahdo yuhuud 6 milyan lama gubin waxba igama saaraa hitler inuu faashista ahaa ama naazist ahaana murankuma jiro hadday reer yurubku qirtaan oo yidhaahdaan 6 milyan oo dadaannu laynay inkaar baa qabteen baynu leenahay ma waxaan u difaaca ma yaallo laakiin waxa aan tilmaamayaa in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iq dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana nebiyullaahi muxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl oo maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo soomaalidu maxay odhan jirtay la jiifiyaano bannaan wadaad baa ul taagay bay soomaalida odhan jireen marka la rabana waxaa la odhan jiray la jiifiyaano bannaan waa la jiifiyaano bannaan sida u taalla miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee waxgaysta malafkiisaa la baadhaayo maalinuun dhakhtar ma tegey dad buu leeyahay haa wuu waallaa beri buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terroristu ahaa hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma egto idan waa la jiifiyaano bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbeddeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaad dee ma doodi karaysidee maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay aadna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad sileeday yaan dadku ku garanin saacinka maaha yaan dadku ku garanin ee koofiyadya idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wassalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa warramaya markaa dadku saasuu rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu muxamed yahay calayhi salaatu wasalaam sala allahuma cala nabiyi muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur'aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur'aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyadda awlaadda iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra